Ma ogtahay inay kuwan yihiin saddex ka mid ah cajaa'ibta adduunka ugu yaabka badan ka hor intaynaan bilaabin. Haylow like saarta muuqaalka kana mid noqota asxaabta kanaalka. Kow Machu Picchu waa magaalo qadiimi ah oo ku taala buuraha dhaadheer ee dalka Peru. Magaaladan waxaa dhisay boqortooyadii Inca ku dhawaad 600 sano ka hor. Waxa ugu yaabka badan ayaa inay ku taala meel ka sareysa heerka badda 2400 mitir, iyadoo laga dhisay buur dusheeda way aad adag tahay in la gaadho. Cilmi-baarayaashu weli si buuxda uma oga sababta dhabta ee loo dhisay. Qaar waxay rumaysan yihiin inay ahayd qasri boqortooyo, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin inay ahayd goob diimeed. Qarniyo badan ayay dunida ka qarsoonayd ilaa dib looga helay sanadii 1911. Maanta waa mid ka mid ah meelaha ugu cajiibsan uguna booqashada badan dunida. 2. Chichen Itza waa magaalo qadiimi ah oo ku taala dalka Mexico. Waxaa dhisay ilbaxnimadii Maya kumanaan sano ka hor. Magaaladan waxay caan ku tahay ahraamta waaweyn ee loo yaqaano El Castillo. Waxa la yaab kale ayaa ah in nashqadeeda si saxan loogu saleeyay xidigiska iyo dhaqaaqa qoraxda. Tani waxay muujinaysaa sida dadka reer Maya ay u lahaayeen aqoon aad uga horeysa waqtigoodii. Xitaa maanta saynisyahanadu weli way la yaaban yihiin sida ay ugu suurto gashay inay dhisaan goob sidan oo kale ah. Inta aynan sii wadin muuqaalka, ma leedahay ganacsi amba adeegad rabta inuu dad badan gaadho? Ma u baahan tahay xaysiis kaas oo kaa caawinaya inaad hesho macaamiil cusub? Waxaan diyaar u nahay inaan si xirfad leh u xaysiino ganacsigaaga amba adeegyadaada si uu u gaadho dadka ku habboon. Fadlan nala soo xidhiidh adigoo fariin noogu reebaya qaybta fariimaha. 3. Colosseum wuxuu ku yaalaa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, waana garoonkii ugu weynaa ee madadaalada dunidii qadiimiga ahayd. Waxaa la dhisay ku dhawaad 2000 sano ka hor, wuxuuna qaadi jiray in ka badan 50,000 oo qof hal mar. Halkan waxaa lagu qaban jiray dagaalada caanka ee boqortooyooyinka, ugaarsiga xayawaanada duurjoogta, iyo bandhigyo kale oo aad u waaweyn. Waxa ugu yaabka badan ayaa ah in dhismahan weyn lagu dhisay farsamooyin aan lahayn qalab casri ah, inkastoo soo maray dhulgariir iyo burbur badan. Qayb weyn oo ka mid ah dhismuhu weli way taagan tahay ilaa iyo maanta, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah astaamaha ugu weyn ee taariikhda bani'aadamka. Dabadaawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, midkii ayaad booqan lahayd? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. Ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.